waxaan aad uga xumaa hooyada inay dhashay wiil wecel ah haddana uu rabo wiilkaas inuu qaato kursiga aniga hadda aan ku fadhiyo midaasna mid suurtagala ma aha maadaama hadda horteyda aad joogto waa inaan qirtaa run ahaantii waad iga nixisay haddii aad rag dhala tahay bannaanka imaw ay la dagaalan aniga markaas ay ku tusaa waxaa tahay haa walaalkay waan u jeedaa awooddii hooyaday inaad adiga wadato halkaan ma waxaad u imaatay aniga inaad baabi'iso aniga meeshan waxaan u imaaday berrigaad baabi'an rabta inaan ka hor istaago waan arkaa uma jeedid miya dadka naga sarreeya dhibaataday annaga noo geysanayaan qorrax ayaa dusha naga hayso mar walbana badda qashin iyo wax aan loo jeedin ayay ku soo daadiyaan meeshii la rabay ayaga inaad ka hor jeesato oo aad annaga garabna siiso ma annagaad naga soo hor jeesanaysaa xitaa carruurteennii way sumeeyeen oo waa kuwaa wada dhidhimanaayo annaga maad garabna siisidna marka cidiisa xalan garab siinaya aniga taas waxay caddaynaya kursigayga inaad rabto adiga aniga kursiga uma baahna ee dagaalka aawada ayaan rabaa inaan joojiyo suldaamada meeshaan jooga inaad isku dirta miyaad rabtaa waxaa rabtid waa dhigi kartaa balse aniga inta waxaan u imaada inaan dhibaato kuu geysta adiga haddaba ujeeddadaada waxay tahay waan u jeedaa waa ku baryaa dadka hortooda haddii aan walaalkay ku dilo boqorradoona way ii qiraayaan boqorka meeshaan ugu weyn inaan aniga ahay waana ku qasbanahay middaas inaan sameeyo maxaa yeelay boqorka saxdaa waa aniga sultaankaygiiyo adiga qof doqan waxba ha u sheegin haddii aad maagtiin wax u sheegto waxba ma fahmaayo waa nacas sultaan sidaa u shaqeeya ninkaan ma fahansana waa la fahansiinayaa hadda ma waxaad rabtaa adigana yar ayaanu ahay inaan kula dagaalamo haddaan ka guulaystay balka war haddii aad iga guulaysato dagaalku waan joojinayaa laakiin haddii aan kaa guulaysto waxaad ogaataa in ay kuu dhammaatay waaba haddii lagaa helaayo haddii ay sidaas tahay dagaalkaaga diyaar ayaanu ah haye maxaad sugaysaan faraantiga dabka waa in loo diyaariyaa ninkan